diina kama rabo daawona kama rabo duugna kama rabo in la idil la rabo aniga Aadumo waa hooyada dhashay Madiina Cabdulaahi oo xalay uu ku dilay askari kamid ah ciidamada booliiska Soomaaliya magaalada Muqdisho waxayna dhabta ku haysaa gabar yar oo dhalnayd 29 maalin oo ay Madiina ka dhimatay xaalad gurigan ka jirto waa mid murugo leh iyadoo isla gurigan uu askarigu ku dilay wiil dhalinyaro ah xilli ay hor fadhiyeen gurigooda waxaana hadda ka jira gurigan laba tacsiyadood oo murugo badan ku reebayso qof walba oo halkan ku sugan xalay waxay wax u dhaceen nimanka markay soo galeen alaabtan aruursan gurigan gashan alaabtii raashinku korseynaya wasaq ah inay gabadh aruurinaysan gurigan ku jiri wiil iyo nina isku soo daba ordeen xabadayaal soo reeyay khaylna waa yeerti xabada markay dhaceen maxaa dhacayna aksiyirti markay yeertiyaan banaan ku soo baxay gabartayga goobyaal aheedo hooy maxaa kugu dhacayaan hal mar la afka tiri mar dambe dhino ninkii askarigan ku soo duubsanay askarigan keen waa la isku yimid xabadii dhiig la fiiri hore laga qaaday jidka intay socoto hore ku dhimatay waxaan codsanaa ninkaas inaa awaal marin ina la keeno micnaha inaas ninkaas ay gabartaysa u dil loo dilo wax kale oo aga baahan jirtaan Farxiye Cali waxa ay la dhalatay Xasan Cali oo ah wiilka dhalinyarada ah ee la dilay goobjoog ayayna ahayd xilligii uu dilka dhacayay abaari oo Afrika ahayd oo soo afray isku baraanka u tagay waa soo naqay meesha markuu soo marayo abada lagu dhiftay aniga meeshaas aan fadhiyay gabar oo ayadana dirsaan hayo ayadana alaab soo qaadayso soo baxayso xabada asaa lagu dhiftay xabada asii ka baxda gabadha dishay labadooda isku maartay adiga 20 jir oo nin weyn waay ciidankii asii marka muran ma ka dhaxday maya waxba ma marka ma dhaxba xarooda al soo xarooso soo baxayne waa laga soo dabaxay xabada waxa codsahayaa ninkii walaalkay dilay oo gacan ku dhiglahay ina geedka la geeyo oo tiirka la geeyo codsaa na karantiileen ee ilmahayna guriyeen inoogu imaadeen la dilaayo ma kuma dul qaada karna taas farmaajine filinka waa ku daatay iskaga baxo magaalada haddii kale taasoo lugaha ka baxaa dilkan loo geystay labadan qof ee shacabka ah waxa ka dhashay caro xoog badan oo galgashay dhammaan magaalada Muqdisho xalay ilaa maanta ayadoo dad badan ay isugu soo baxeen wadooyinka iyo fagaarayaasha ku yaala degmada Boondheer oo ah meesha uu dilku ka dhacay waxayna dadka badankood dalbanayeen in cadaalad la hor keeno cidii ka dambeysay falkani madaxweynaha farmaajo oo dadka soo amray iyo Xasan Cali Khayre waxa uu sheegay adeerka in la xaq dhacsho cadaalad jirto in loo xaq dhacdo adeerkay Xasan Cali Cadaawe marka la joogo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya iyo magaalooyinka kale ay ka jiraan maamulada dalka waxa si joogto ah u dhaca dilalka ay askartu u geystaan shacabka waana nasiib daro weyn halkii ay ahayd in askartu ay ilaaliyaan amaanka shacabka in bulshadu amaankooda ay ugu baqaan askarta Safiya Ismaan Cabdullaahi Shabeelle TV